subaxnimadan idiin diyaarisay waxaa ka mid ah madaxweynaha Galmudug oo sheegay culeysaad jira awgeed muddo sanad ah inuusan tagin magaalooyinka Cadaade iyo Muqdisho xiisad weli ka taagan magaalada Beledweyne iyo gudoomiyihii xilka laga qaado oo sheegay in Hiiraan ay ka tashanayso inta kale ee Hirshabeelle gudoomiyihii gobolka Mudug oo ka hor yimid xilka qaadistii uu ku sameeyay madaxweyne Xaaf madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo safar degdeg ah ku gaaray magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari amisom oo baarlamaanka Soomaaliya ka taageeraysa sharciga doorashooyinka ee horyaalla golaha shacabka fatahaada webiga Shabeelle oo laga cabsi qabo magaalada Jowhar inay saameyso dowladda Qatar oo xal u raadinaysa xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dalalka Iran iyo Mareykanka iyo cidii bedel lahayd ra'iisul wasaaraha UK Theresa May oo waqtigii loo qabtay saacado ay ka dhiman yihiin subaxnimo Isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 10ka bisha 6aad sanadkan 2019 intaas aad maqasheen dhageystayaal waxa ahaayeen qodobadii wararka risaale idiin diyaarisay warka subax waxaa soo saaray Maxamed Abuukar Dawaashe anigoo Faysal Hanada ayaa halkan idin kala socodsiinaya ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ka dhawaajiyay muddo sanad ah inuusan tagin magaalooyinka Muqdisho iyo Cadaado isagoo sababta uga dhigay inay tahay caqabado kala duwan oo xilligan hortaagan maamulka Galmudug sida uu sheegay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa tilmaamay culeysaadka jira inay sabab u noqdeen in magaalada Cadaado uu ku dulmaro diyaarad oo uu dhulka mari waayay isla markaana isagoo u socdo magaalada Gaalkacyo sabab ay u noqoto in diyaaradu ka raaco magaalada Dhuusmareeb uuna ku tago magaalada Gaalkacyo waxa uu intaas ku daray in magaalada Muqdisho hoyga uu ka degan yahay muddo sanad ah uusan cag soo dhigin sababtan waxa uu ku tilmaamay culeysaad jira iyo dadka doonaya Galmudug in aysan rabin xasilooni siyaasadeed oo maamulkaasi ay ku dhaqanto sida uu hadalka u dhigay culays badan baan haysto waad ogtihiin culayskana insha Allah iska caabinaynaa saan iska caabin lahayn dhalinyarada yaa loo baahay waxa la rabaa dadka naga soo horjeeda wanaagana ma rabaan wallahi inaysan rabin wanaageen halkan maalintii aan imaanaynay oo ugu horeysay meel badan baan dhagax dhignay wax soo laabtay ma aragteen ma idnaan arag ma arki doontaa wax badan ayaa jira hal sano aniga xataa gurigayga ma tagin hal sano xamar ma tagin waxaas inaad ogtihiin baan u malaynaya cadaadana diyaarad baan ku dulmaraa cidana lagu gumaysan mayso Galmudug waa ka shaqaysanaynaa waana joogaynaa awal waxbaan danaynayna waa gagabanaynaa waxaan islahayn ama wax si noqdaan laakiin hadda run bay geeday dalka ayaan ka shaqaysanaynaa madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxa uu sidoo kale sheegay in Galmudug hadda ay u xuubsiibatay dhismaha ciidamada kala duwan ee maamulka isagoo sheegay ciidanka magaalada Gaalkacyo in la dhisay qorshahana hadda uu yahay in ciidan loo dhiso magaalooyinka kale ee Galmudug waxa uu si cad u sheegay in Galmudug cidii ku soo gardarooto ay iska dhicinayaan isla markaana waxa uu tilmaamay in xarumaha kala duwan ee wasaaradaha maamulka dhawaan ay shaqo bilaabi doonaan oo dadka Galmudug ka shaqeeya ay heli doonaan xuquuqaadka ay ku leeyihiin maamulka wax badan oo aan loo jeedin waa noo imaan doona khayr badan oo helaynaa warshadaan dhisanaynaa jidadkayga oo dhisanaynaa hadda asbuucan waxaan bilaabaynaa jidka Guriceel iyo Ceel Dheer waa bilaabaynaa waana samaynaynaa wax badan oo kale oo aan gacanteeda ku samaysan karnaa jira waanu samaysanaynaa waana ku tilaabsanaynaa wasaaradihii iyo kulli hadda shaqo bilaabayaan wax walba waan helaynaa insha Allah taala difaacana cidina soo weerartana gaashaankaan u daruuraynaa ciidamadii waa dhisaynaa Gaalkacyo waa soo dhisnay halkan waa dhisaynaa Cadaado waa dhisaynaa Cawdo waa dhisaynaa meel walba ka hagaajinaynaa insha Allah taala dadku shaqay wada helayaan qof waliba mushaar inuu qaato dadka dhalinyarada ama rag iyo dumarba ha ahaatee wixii aan wax baranay inay shaqo helaan man ka shaqaynaynaa waan heli doonaa insha Allah maamulka Galmudug ayaa xilligan waxaa haysto caqabado kala duwan oo horay u socod la'aan ku kalifay iyadoo ay jirto khilaaf u dhaxeeya madaxda Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya halka Galmudug qudheeda ay u kala qaybsan tahay laba dhinac qayb ku sugan magaalada Cadaado iyo qayb fadhigeedu uu noqday magaalada Dhuusmareeb
iyadoo siyaasiyiinta maamulka galmudug ay shayada ka daawanayaan go-doonka ay maamulkaasi ku jirto oo aanay waxba iska weydiin. xiisad ayaa weli ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo gudoomiyihii xilka laga qaaday uu sheegay in Hiiraan ay ka tashanayso Hirshabeelle. Maxamed Abuukar Dabaasha ayaa warkan faahfaahinaya. wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ay sheegayeen in qaar ka mid ah waxgaradka magaaladaasi ku nool ay bilaabeen dadaalo lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisada weli ka taagan gobolka taas oo ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii gobolkaasi Hiiraan. qaar ka mid ah waxgaradka magaalada ayaa xalay la kulmay gudoomiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Dabageed waxayna ka codsadeen in xilka uu wareejiyo ama uu ka baxo xarunta gobolka. waxayna odayaasha qaarkii oo aan soo xiginay inoo sheegeen in intaas buu ka aqbali waayay Yuusuf qodiisa oo shalay warbaahintu kula hadlay bartamaha magaalada Beledweyne waxa uu sheegay in arrintan iyada ay soo fargelin dawladda uusan marna dhici doonin in xilka wareejiyo. wuxuuna sheegay in markii hore uu ku yimid rabitaanka dawladda haddana uu sugayo go-aanka dawladda. wuxuuna sheegay haddii arrintaasi dawladdu soo fargelin Hiiraan ay ka go'i doonto Hirshabeelle inteeda kale. dawladda Soomaaliyeed aan u sheega oo dalka iyo dadka ka masuula ilaa dawladda Soomaaliyeed waxa laga shaqeynaa ay ka soo sheegayso ay faragelin kaga soo sameynayso maamulka Hirshabeelle wax wada shaqeyna iyo wax xiriira iyo wax wanaaga oo dadka reer Hiiraan Hirshabeelle la yeelaan ma jiraan. waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed inay si degdeg ah Hiiraan wax laga yeelo u soo tilmaanto. taladan meesha ku imiday inteeda ugu badan waxa iska lahayd dawladda Soomaaliyeed. heshiisyadii lala galay oo ka mid ahayd oo dawladdu la gashay maalinkii ina waara soo caaytama dawladda ayna uu ku yimiday kismaayo sidii aan ku imid aniga hadda anagu wixii dawladda Soomaaliyeed ku talido aan ama ku joogi doona ama uga tagi doona. dawladda Soomaaliyeed arrimahan in soo farageliso ay reer Hiiraan waxay yeelaan ay uga soo sheegto ama ay uga timaadaan ma aha Hirshabeelle wax wada shaqeyno reer Hiiraan la yeelaan ma jirto. wax kale oo gaar ah marna oo kula shirka yahay maamul goboleedyada mowqif kale ama go'aamada leh marna dawladda Soomaaliyeed madaxdeeda oo been ugu sheegaa oo ka shaqeeyo waaya maya marka. xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay tagaan magaalada Beledweyne si looga hortago dagaal ka dhasha xilka qaadista Yuusuf Dabageed. madaxweynaha Hirshabeelle ayaa la sheegay inuu amar uu ka bixiyay in xoog looga saaro xarunta gobolka sidoo kalena la soo xiro Dabageed haddii uu diido inuu xilka wareejiyo. Dabageed ayaa sheegaya in waxa uu shalay uu sheegay inuu isdifaaci doono haddii la isku dayo in la xiro. waxaana la sheegay inuu wato ciidamo badan oo taageersan kuwaas oo ku sugan gobolka Hiiraan. dhinaca kalena gudoomiyihii gobolka Mudug ee maamulka Galmudug ayaa ka soo horjeestay xilka qaadis uu ku sameeyay madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Cabduqaadir Jakarta ayaa sii dhameystiraya warkan. habeen ka hor madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxa uu soo saaray wareegto uu xilka u qaadayay gudoomiyihii gobolka Mudug ee maamulka Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan hayeeshee saacada kadib xilka qaadistaas uu ka soo horjeestay. cabdirashiid xaashi cartan oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in warqadda xilka qaadista ah aan lagala tashan isla markaana kaliya uu ku arkay baraha bulshada hayeeshee markii uu la xiriiray madaxda sare ee Galmudug ay sheegeen inay tahay mid sax ah. waxa uu sheegay in waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo uu la sameeyay wada tashiyo sidaa daraadeedna aan xilligan jirin wax xilka qaadis ah oo isaga lagu sameeyay isla markaana shaqooyinkiisa caadiga u hayay bulshada ku nool gobolka Mudug uu qabsan doono. inta markay dhacday shacabka ku dhaqan gobolka Mudug iyo odayaasha dhaqanka waxay go'aan ku gaareen laga soo bilaabay xilligii dekreetada oo Xaaf soo saaray ilaa xilligan inay wada tashi u fariistaan wada tashigaas oo kadib wixii ka soo baxay ay ila wadaageen oo ah in arrintaani ay tahay arrin aan inaba la qaadan karin sababtuna ay tahay ay u arkayaan miisaanka iyo howlaha gobolka aan ka soo qabtay iyo muhiimadda aan u leenahay iyo arrintan oo ku timid wax aan la gelinayn ama xilliganba aan la shaacin iyo ayadoo xilligan hadda lagu jiro uu madaxweyne Xaaf madaxweynihii mataqaanaa uu ku jiro xilli transition ah oo muddo badan laga wada hadlayay masiirka Galmudug iyo masiirka dowladda federaalka iyo xiriiradeeda in xilligan marka uu go'aan qaato uu yiraahdo waxbaan kala dilayaa waxbaan magacaabaya ay ku noqoto maamulkii iyo bulshadii
mid lama filaan ah oo ku abuuraysa khilaaf hor leh sidaa aawadeed anigoo tixgelinaya shacabka rabitaankooda iyo dhammaan duqowda kasoo jeeda gobolka mudug ee muddada dheer aan kasoo wada shaqeynayna nabadeynta iyo arrimaha bulshada oo anigoo aad iyo aad igu adag tahay inaan iraahdo maaragtay inaan ka hadlo arrimo khilaaf ku saabsan maadaama hadalka guddoomiyaha xilka ah laga qaaday ee gobolka mudug ee maamulka galmudug ayaa kusoo adaya xilli xiisad ka dhalatay xilli qaadistii guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed dabageed ee weli ka taagan tahay magaalada beledweyne kadib markii uu diiday xilli qaadista lagu sameeyey waxaana guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdirashiid xaashi cartan uu shaaca ka qaaday in xilligan wixii ka dambeeya shaqooyinkiisa uu sii wada doono islamarkaana xilliga uu sheegay in xilli qaadista lagu sameynayay uu ka maqnaa gobolka mudug islamarkaana uu meelo kale u jiray howlo shaqo. amisom ayaa baarlamaanka soomaaliya waxa ay ka taageereysaa sharciga doorashooyinka ee horyaala golaha shacabka soomaaliya. ubax maxamed ayaa warkan faahfaahinaysa. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka midowda afrika ee soomaaliya ambasador francisco. gudoomiyaha iyo wakiilka ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo wada shaqeynta labada dhinac howlgalada wadajirka ee amisom iyo ciidanka xoogga dalka ee lagu xasilinayo dalka. sidoo kale waxay ka wada hadleen sharciga doorashooyinka ee horyaala golaha shacabka. wakiilka midowda afrika ee soomaaliya ambasador francisco ayaa gudoomiye mursal la wadaagay howlgalada ay wadaan ciidanka amisom waxyaabaha ay u baahan yihiin ciidanka amisom iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya si loo soo afjaro dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab. waxaana qirayaa in ciidanka amisom ay dadaal ku bixinayaan xasilinta iyo nabadeynta guud ahaan dalka iyo sidii argagixisada looga guuleysan lahaa. golaha shacabka waxa uu diyaar u yahay inuu idinku garab istaago shaqooyinka adag ee aad haysaan ayuu yiri gudoomiye mursal. kulankan waxaa koobjoog ka ahaa xogayaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux. ugu dambeynna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa ku baaqay dadaal albaabada loogu furayo wadahadallo u dhexeeya dalalka iiraan iyo mareykanka. sheekh maxamed bin cabdiraxmaan athaani ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada london in qatar iyo dalal kale ay labada dhinacba xiriir la sameeyeen si xal loogu helo xiisada sii xoogeysanaysa ee gobolka. hadalkan ayaa imaanaya iyada oo toddobaadkan lagu wado inay booqasho ku tagaan magaalada tehraan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka iyo ra-iisul wasaaraha dalka jabaan iyaga oo isku dayaya xal u helidda xaalada ka dhexaloosan labada dal. sheekh maxamed ayaa sheegay in qatar oo ay weheliyaan dalal kale ay isku dayayaan inay kala dhex galaan si meesha looga saaro xiisada labada dhinac.